بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير والسلام أمان كجدال وحن سلام يا ضدك الصومالية مالك الصوائي عالم كجنوليين وحن لها جمعة وناكسن جمعة مباركة ما أنتم حنو استاجي إن أن سكوبا ضدك الصومالية وربحين ير أن وسيو أرنت كوسابسن بريهن تاجنيدي كوسابسن جبلان يا رمها كجرة iyo sida ay ku yimaadeen iyo wadooyinka ay soo bareen si kooban hadii alla yiraahdo waad ogtihiin dalkan teeramkii hore oo aan madaxweynaha ka noqday 2012 ilaa 2000 iyo bilowgii 17 bishii February ayaa anagoo tixgelinayno oo fulinayno waajibka dastuurku in saaray ee ah dalka in uu federaal yahay ayaa waxaan ka shaqeynay nidaamka federaalka ahay sidii uu uga dhaqan gali lahaa dalka hawl kasta oo bilaaw ah waa iska dhib badan tahay sidii aan anagu la sadayna jeclayn umaanaan bilaabin laakiin sidii duruuftu iyo sidii laga fursan waayay ayaa lagu bilaabay muhiimaduna waxay ahayday hadafka ugu dambeeya in la gaaro oo dalku uu yeesho dawladda federaal yani maamulo federaal ah sida dastuurka uu tilmaamayay sidii ayaanan fulinay muddadii taarmkeedun joognay dalka dhammaan ayadoo 2012 markaan imaanaynay dawlad goboleedka Puntland bis oo dalka ka jiray iyo Soomaaliland oo dabcan duruuf gaar ah ku sugnayd maalintan barnaamijkaas nimiday horaantii gabagabadii 2012 waa taan bishii September oo 3 bilood October November December 2012 ka qabnay 13 aakhirkeedii baa waxaan ogaanay in uu socdo barnaamij looga hadlayo Jubbaland oo ka socdo magaalada Nairobi xaafadda Karen la yiraahdo barnaamijkaas dad badan oo Soomaaliyeed oo dhamaantood markaas sheeganayay in ay reer Jubbaland yihiin oo qabaa'ilka Jubbaland degan oo aan ogtiin Jubbaland waa Soomaaliya yar waay qabiil Soomaaliyeed oo aan deganeyn ma jiro haba lagu kala badnaado oo lagu kala muxuu ahay weynaadeen lagu kala dhul weynaadeen meeshiyaan weydiinay safiirkeennii markaas joogayaan u dirnaa dhan warbal meesha waxa ka socda soo ogow meesha maamulaa lagu dhisayaa igadaana muxuu ahay yaa wada waa oo fududaynaysa marka dadkiina waa la hadalnay safiirkan u dirnay igadiina waa la hadalnay waxaan dhahnay Soomaaliya taladeeda waayihii ku meel gaarka ahayd oo banaanka looga tashan jiray waa dhamaatay gudaha la keena talada dad badan oo marka dadkii talada meesha ku haya aha arintaas kuma qanacsaneen raalina kama ahayn laakiin dadka in badan oo kamid ah oo arintaas ku qanacday iyo in kale oo ay kamid ahayd igad oo aan dawladda Soomaaliya warkeeda dhinac mari weyday ayaa sabab u noqday in la soo qaado intay yimaadeen ma fiicnayn inta waxaan dhahnay war aan tashanno waxa la sameeyay ee shuruucda nidaamka wixii dalka ka jira sida ay ogol yihiin aan u meel marino adigu dadkii waa la isla booqbooqay dadku waa kala jabeen inaan kala jibina anagu diidayna waxaan ka codsanay ilaantood in israacaan Kismaayo ay tagaan Kismaayo processka si fiican yani dabcan duruufaha Soomaaliya process kasto siyaasadeed oo la bilaabo ayaa sida caadiga caalamka oo dhan process kasto siyaasadeed tabasha ka jirto Jubbaland sidaas ay ku sameysantay nidaamkii sameysmay waxa madax u noqday Axmed Maxamed Islaam Axmed war wuxuu waa ka qaldan yihiin sidaan laga daayo yaan dhahnay doorashadu yani war meesha xoogaa doorashaha loo ekaysiyo oo xataa hadayna dhaba noqon karin dad kula tartama iyo waxa la sameeyay iyo waxba la yiri waxba uu muxuu ahay sidii la rabay aanan u dhicin inay noo yimaadaan waa diideen inaan u tagnana waa diideen waa daba kacnay waa dad badan u dir Soomaali u dir ajnabi u dir cid walba u dir waa ka quusanay waa diideen markii dambe nimankii igadahan ugu soo noqdo waxay dhaheen haddaan idin la fududayna ka warramo kuma aan qanacsanayn laakiin huriwaaytay aheedayo wada kalaan weyne waa aqbalnay dibaddan ku shirnay wafdiyaan dawladdu magacaawday iyo isaga Axmed iyo tiimkiisii heshiis aan soo gaaray sida wax u dhaceen doorashadii meesha dhacday inaanay sax ahayn doorasho sharciyad la oo madaxweyne lagu noqdana aanay ahayn ee la sameeyo muddo ku meel gaar ah lagu qaban qaabiyo doorashadii 2 sano ku meel gaar ah la sameeyo oo lagu qaban qaabiyo doorasho ila meesha ka dhacdo Axmedna madaxweyne ma ihid hogaamiyaha hadda jooga meesha maadaama si ciidama iyo si muxuu ku raayay shabaabna arada dhibayay hogaamiyaha Jubbaland 2 sano ku meel gaar ah doorasho in lagu qabto 2 sano gudaheed
maamulka Jubbaland sidaa lagu dhiso markii dad badan oo si loo wada galgalay runtii waa isbedelay waa soo degay inuu dawladdiisa wax la qabsado sharciyadu ay dawladda ka soo jirto wuu ku qancay waan ka gan heshiiska aan galnay waa qoran yahay wuu yaalaa waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ah 2 sano ku meel gaar ah doorashada lagu gaarsiinayo deegaanka waxaa ka mid ah magaciisu inuu hogaamiye yahay oo aanu madaxweyne ahayn waxaa ka mid ahayd dekada iyo airportka dawladda federaalka ah inay leedahay oo ay ayadu maamulayso iyo wax la mid ah muddo markaan joognay oo Axmed yimiday markii dab isfahamnay oo loo yimiday oo anaga xagga aan tagnay oo isu soconay markii dab codsi noo yimiday wuxuu meesha dakhli male dekada in la siiyo raba oo aan ka dhigano nolol magaalada Kismaayo kaligeedaan nahay meel kale wax nagama soo galaan dekada hana siiyo dekadii aan u ogolanaa daan airportkan hal igu daro ayadana qaadan dakhligaana markaa perspective-ka laga hadlay sidaas ayaa airportka iyo dekada yaan ugu wareejinay aan u siinaa dhanay magacaabo dadkaaga samayso wixii ka soo baxana qaado ku noolow waxyaabaha aan ku negotiate garaynay oo aan uga tagnay berigaas waxaa ka mid ahayd lacagta qaada adiga laakiin maamulka dawladda dhexe haynayso wax meesha aan lacag la waayo wax kale oo la maamulaya ma jiraan waana isku qabsanaynaa khilaafna waa ka imaanayaaye hana loo daayo dhan waa u deyna maadaama dekadihii kaleba markaa aanan dawladda federaalka gacanta ugu jirin mar aan wada baadi goobi doonaa la soo noqon doonaa ayagana loo daayo Jubbaland sidaasaa ugu deyna sidaasay ku soo dhamaatay termkii dambaa yimiday doorashaa la qabtay Axmed waa la doortay baarlamaankii la sameeyey dacwaa laga qabay kan dacwaa laga qabay annaguna waqtigeena dawlad goboleedyadii kala sameeynayna dhisaynay dacwo iyo buuq iyo wax kale oo hadda hor la kamaanaan bixin doorashadii la qabtayna waa ku aqbalnay sidaasay Jubbaland ku jirsatay tii labaad oo 19 dhacdayna waad ogeydeen iyo sidii ay u dhacday midda hadda waa isku nimiday annaga daraasaan sameynay dawladda federaalka dhexe haddaan nahay shanta dawlad goboleed ee dalka ka jirta ahi midba waqti gooni ah waa ogtihiin dastuuradooda ma midaysnaa xilliyadooda ma midaysnaa structurekooda ma midaysnaa laakiin de wixii oo dhan maadaama ay ku meel gaar wada yihiin inaan 2022 dacwad doorasho dawlad goboleed aan bilow oo 2023 mid kale aan dawlad goboleed kale aan la galno oo 2024 mid kale aan la galno oo 2025 aan mid kale la galno yaa noo soo baxday sawir ah waana taan sheego doorasho kasta tabashay leedahay tabasha ka dhalato tabashooyinka ka dhalanayaahi in ay naga hor istaagayaan waxyaabihii kale oo dawlad dhisidda ahayd ama dawlad dhisidii constitutionka dhisidiisa shuruucda sameyntooda hadday tahay iyo inay naga hor istaagayso wixii oo hortaminta koobaad noo ahay oo ahaa dalka xoreyntiisa ayadana inay naga hor istaagaysaa noo muuqata iyo doorashadan kala dhacayso dalkii de sanad walba in dalku uu ku jiro mud doorasho ah oo meel ka jira ama meel kale ka jira waa shirnay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaan isla garanay doorashada in la mideeyo hal mar ma wada midayn karna inaan dawladaha hoose iyo dawlad goboleedyada tooda inaan midayno oon mid ka dhigno dawladda federaalka teedana aan mar kale ka dhigno maybe markaas haday suurtagal tahay ilaahay yiraahdo termka dambe in la wada mideeyo adduunyada doorashooyinku waa midaysan yihiin 10 saacadood oo hal maalin ama 12 saacadood oo hal maalin ah doorashada dhan ku dhacdaa munishibiyo dawladaha hoose haday tahay degmo haday tahay dawlad goboleed haday tahay iyo hay-adaheeda kala duwan oo dhan subaxii hal saac doorasho bilaabato oo maqribkii ama 5 galabnimo ama 6 galabnimo dhamaataa lagu doortaa sanduuqa la saddex dhinac dhigaa kala kalar ah warqado kala kalar ah lagu kala ridaa waa ku dhamaataa adduunyada maasida ku codayso malaayiin dad ah ay codaynayaan meeshaas higsiga aan gaari doonay ahayd laakiin hadda termkan aan laba qaybood aan ka dhigno kuwana aan midayno taasna aan mar kale ka dhigno political understanding isfaham siyaasadeed oo looga dan leeyahay intaasay ahayd ma ahayn isfaham siyaasadeed oo qolo ama lagu dhiirigelinayo ama lagu waxaynayo waanad ogtihiin doorashooyinkii dawlad goboleedyada ugu dambeeyay soo maray mid aanan dhiig ku daadan oo aan la isku dilin ma jirin siday sababtu waxay doontaa ha ahaato intaasna ahayd intaan ka cararaynay marka sidaas daraaddeed waqti aan qabanay aan dhahnay doorashadii oo midaysan waqtigaasaa la qabanaa November 2024 baarlamaanka oo fasax galay ciid iyo ramadaan iyo xaj iyo adduunyada soo kala gashay duruufo kale oo yimiday shuruucdii loo baahnaayo doorashada lagu qaban lahaa ayaa noo qabsoomi weyday yani walaxaan markaas dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo sutagooda NCC-da awood ka baxsan oo ayagu waxaanay awood u lahayn ayay noqotay sidaas ayaa dib u dhici oo noogu yimiday
dib aan u shirnay waxaan garanay inaanan tii ka tanasulin ee aan ku darno. marka guud ahaan sawirka dalka iyo dowlad goboleedyada iyo sidaas uu ahaa. Jubbaland markaan usoo noqdo marka Jubbaland Axmed waqtigiisii mar hore u dhacay. Axmed laba teeram oo doorasho iyo laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo ka sii horeeyay soo maray 13 sano ayuu meesha joogay. isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu constitutionka inta tago furay oo dhacay constitutionka laba teeram ku qoran Jubbaland lagu heshiiyay bilowgii laba teeram madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaayoo la tartamayo Kismaayo joogay heshiis uu la galay Axmed teeramkii ugu dambeeyay waa laga leexdo teeramkan kadib sharaxi maayo ayadana heshiis labaad ah constitutionka furay isaga oo muddadii annagu aan sameynay aan dhahnay waxbaan ku gaarina oo mandate-kii ugu dhacayday ay soo ku jira waxa jeclay waxaan hayday dalkan mar forever indirect election kan direct election kan doorashada dadban ee weligeed ah jamhuuriyaddan saddexaad sidii loo aasaasay ilaa hadda doorashada dadban ku jirna 24 sano sanadka 25aad yaa noo dhal raba goorma ka bixinaa doorashada dadban maalin maalmaha kamida oo Soomaali kulligeed talaabo siyaasadeed oo la qaaday ay caleemo u wada luleysay miyaa jirtay Djibouti 1 iyo Djibouti 2 ka soo bilow ilaa maxaan ku yiraahdaa xamar wixii mugan soo rabna ka keen waa mid aan sheegayo doorasho mugay timaado tabasha jiraysa mar walba qolaa tabasha qabto arta qolaa tabasha qabtay imbagaati qolaa tabasha qabtay 2012 inta mugan isugu qolaa tabasha qabtay maalin walba qolaa tabasha qabto waana dhaqanka ay sunnada doorasho ay leedahay waa meel kasta joogtay sidaas daraadeed 13 sano ayaa uu Axmed Jubbaland joogay teeram kale xaq uma lahayn dastuurka waa furiyay dagaalka maanaan gelin dastuurka maxaa u furtay mar walba waxaan diidaynay meeshaas aan u soconno wixii caqabad ku noqon kara ama ciriiri kara oo dhan wax loo midaysan yahay mar walba in la wada riixo oo qof tanasulaad laga sameeyo wixii la waxaynayo annagoo mar walba jecel dadka in la isku haayo oo barnaamijka Soomaali heshiisana wadna ku fikirina wadna waxaan rabaa maanta Jubbaland bas aan ka hadlayaa Puntland ama wixii kale siyaasad oo jir maalin kale aan ka hadli doona 10 shir ay NCC yeelatay 10 shir oo dhan waxa looga hadlayay waxay ahayday dawlad dhisidda shir kasta oo la yeesho laba warqadood ka soo bixisay warqad communique ah oo dadweynaha lagu gaarsiinayay wixii jiray iyo warqad heshiis siyaasadeed ah oo la wada saxiixay madaxweynaha dowladda goboleedyada saxiixay dowladda federaalka ay saxiixday gobolka Banaadir uu saxiixay yaa ka soo bixisay taas oo ay ku caddahay waxa lagu heshiiyay waxaas oo loo rarayo ama loo rari doono dastuurka inay ku soo baxaan ilaa dastuurku waa heshiis siyaasadeed golahaasna waxaan arkaynay dastuurka inuu ku qoran tahay wixii contentious issues ama arrimaha oo adag siyaasadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka soo heshiinayo markay ka soo heshiiyaan baarlamaanka federaalka la geynaya baarlamaanka federaalka go'aanka kama dambeystaan iskale arrintaas qaab dhismeedka amniga dalka ayaan ka soo heshiinay garsoorka federaalka ah ayaan ka soo heshiinay maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka ayaan ka soo heshiinay awoodda dowladda dhexe iyo awoodda dowlad goboleedku sida ay kala noqonayso yaa laga soo heshiiyo oo intaanu awoodoodna dowlad goboleedka iskale intaana dowladda dhexe iskale intaana meel dhexe taalaayo waa laga wada hadlayaaye qolo gooni go'aan uga gaari karta male waa soo kala dhigdhignay waa laga soo heshiiyey iyo wax badan oo la mid ah mid walbana sidaas warqadaas heshiiska ay ku tiilay dadkan waa loo sheegay dadku ridi ficil ama maxuu ahay ka badan kama ayan imaanin arrimahaas oo dhan markii loo yimiday siyaasadda markaas ayaa sheekada iyo dooda iyo warka uu bilowday mushkiladda Soomaaliya inay siyaasad tahay ayayna daliil u tahay markii la yiri dalku saan u ekaanaya xukunkiisa meesha hoose meesha dhexe meesha sare saddexda lakab ee dawladda xukunkoodu saan u ekaanaya saanu ku imaanaya dawladaha hoose waa la doorana baarlamaanka dowlad goboleedka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka iyo ku-xigeenkiisa waa la doorana dowlad goboleedka wuxuu soo dooranaa aqalka sare saan wixii markii la yiri waa la is doorana doorasho qof iyo coda qaabka doorashadu waa sidaan xisbiyadu waa sidaan dalka ka jiri doon xisbiyadu siday ku imaanayaan waa sidaan meeshaas ay ka bilaabatay qannada horta
buuqa iyo wada hadalka iyo waxa meesha ka bilowdeen waana wax la fahmi karo waay laana siyaasadda waa masiirkii ummadda waa masiirkii deegaanada waa masiirkii qofka waxa go'aanka ay ka gaarayso oo la habeynay marka dadku in ay jimbadaan muxuu ahaay wax oo ulayso ama muxuu ahaay qaab daran ma aanu soo noqdo Jubbaland intaasoo dhan waa ku soo balan shirki tobanaad oo hadda isugu imaanayna ajenda weyn oo siyaasadeed ma oolin shirkaas dambe oo tobanaad waxa loo qabto waxay ahayd consensuska iyo wada ogolka inta la xoojiyo baarlamaankana in fariimo iyo loo diro lagana shaqeeyo lalana hadlo loona muujiyo waxaan baarlamaanka la hor keenay wax dadka intiisa badan ay ku soo heshiiyeen mas'uuliyiintooda intooda badan inay yihiin intaasaa ugu muhiimsaneed 2 bilood Axmed aan sugaynay bilna shirkaan naga qaato 3 bilood intaas ku jirtay maalintii shirka isugu nimaday saaxiibkeen Axmed wuxuu keenay ra'yi ah suurtagal ma ahan aan kala qaadno dalka doorashadii dadbaneed ayada saalayna doorashadii dadbaneed hal geliyo asagoo cudurdaar ka dhigtay mandate-ka naga dhamaaday November mandate-ka ku akaay isma weydiin saaxiibkeen mandate-ka November ku akaay awl intuu ka yimid heshiis golahaas uu gaaray oo ahay heshiis golahaas uu gaaray maamuladii dadka ku noolaayeen aanay in badan oo kamid ah aanay aad uga cabanin oo ay nagu aqbaleen kuwa aan maslaxado oo ku dhaadhicno barino iyo kuwa kaleba saasuu ku yimid awalba heshiiska November waxaan dhahay heshiiska awalba annaga keenay maslaxadaana u keenay shakhsi iyo koox iyo meel gaar u maanan keenin haddana wixii waa naga waxaan waxaan ka wada shaqeyn aan dhameystirno safarkan yaanan qabyaynin oo dhameystirno maalintii waa looga codbatay dadkii oo dhammaa muxuu ahaay sida la noqday waan xanuunsanahay idin lama joogi karo dhahay bartamihii shirka Soomaaliya uu naga tagay maalintii dambe uu yimid maalintii dambe ajenda kale la imaaday wuxuu dhahay guddiga doorashada la kala qaado fiidii sida laga dhigo siidna loo daayo fiidka dowladda federaalka ha yeelato fiidka dowladda federaalkana doorashada nationalka ha qabto laakiin midaan kale fiid iyo siid waa tiirarkii doorashada ban ay lahayd waa sideedaba marka waa u sheegnaa dhaqankeena Soomaaliga waa laga meel kale in wax ka jira laakiin annaga Soomaali haddaan nahay doorasho mugay timaado waxaan baranoo naqinay waxay doorashadii dadbaneedna tiirarkeedu sidaas ay ahaayeen dadkii dhamma isla qabsaday wixii laga dooday wixii maxaan ku raadayay aad loo dooday waa qanci weyn ana gooni ula shiray aniga ra'iisul wasaaraha gooni ula shirnay ra'iisul wasaaraha inta baxay gurigiisa ugu tagay oo kula soo shiray madaxweynayaasha meesha joogayaan u dirnay oo u tagay oo gurigiisa ugu tagay oo gooni ula soo shiray maalintii dambana anagoo joogno bal waa isku soo noqonaynaa daas ku joogno shirkuna noo furan yahay ayuu iska baxay waa baxaya hal ii sheeg waa wacay waxaan Axmedow maxaa u baxay waa baxaya oo yiri anigu waxaan xanuunsanahay howlna waa iga kala daadsan tahay kan waa kii kala waa ra'yigaygan aniga waa diibay oo ra'yi iguma dhinna mis waxaan dhahnaa weliba meeshaas waa habeenkii waa baxaya mugaan maqalnaa iswarwarsanay in arrintan tanaasul laga muujiyo yaan ku ballanay waxaan dhahnaa Axmed noo joog saacado ilaa 6 saac noo joog shirka waa xirina waa loo kala tagay dadka Soomaaliyeed si aanay message fariin khaldan si aanay u gaarin qadiyaddan isku haysano doorashada shirka dabaan geysanaynaa oo isugu imaan doonne kan waa gunaanadeena qodobo kala noo yaalo la dagaalanka argagixisada dib u heshiis wax qodobo kala jiro oo laga hadlay kuwaasaan sii deynaynaa hadda heshiis cusub oo siyaasadeedna awalba ma jirin shirkan marka 3 saacadood joog midday 6 saac hadii la gaaro diyaaradaada qaado shirkuna waa xirina waa diiday waa tagay Axmed markuu tagay meesha waa wacnay waa daba kacnay waxaan dhahnay aan ku nimaado aan warkii iyo doodii aan sii wado waa naga diiday ma waxaan dhahnay adigu bal niyo wixii hadda iska kala dadejiso bal noo soo noqo nimanka xataa waa ku sugayaan soo ma noqon karo dhahay annagoo dhan macal ragga kale oo madaxweynayaasha ah iyo NCC oo dhan guurayso aan soo guurno oo aan kismaayo kugu nimaado maya hadda waa mashquulan ahayo iguma imaan karo haye walba muddo qaaday gormaan noo soo noqonay aniga waa kala tegina aan balano Axmed waqtiga imaanaya ee aan isku soo noqon aan dhahnay aydan waa diiday waqti waa waay bal dib aan iska soo wici doonaa waa is arki doonaa waxaan doonaa war u kaadi war aan wada hadalno doorashada iyo waxa aad la ordayso noogu kaadi war guddiga aad dhisaysa dadka waxaad u sheegaysaa jooji aan soo nimaado aan ku nimaado noo imaam daba joog nag ilaa markii dambe oo telefoonadana naga qaban waayo awaamirtiina iska sii wato imaatinkiina waa diiday ra'iisul wasaaraha waa tagaya soo dhahayo wuxuu si aanay faraha uga sii bixin ana iri ha tagi joog
markii dambe waddadaasaan soo marnay ninkaasi muddadaasuu ku leexday meeshaasuu maray dowladda marka laba khiyaana hor taallo axmedaa barnaamijkii doorasho qof iyo coda in la gaaro iyo constitutionkii la review garaynayay afar jabtaroo kamid oo lasoo dhaafay ayn doorashadan iyo nidaamka xisbiyada iyo waxaan jabtarada la sharciyeeyey oo la ansixiyey oo baarlamaanka u codeeyey ayay ku yaallaan haddii waxaan ka bedelno waa inaan dastuurka horta u noqonnaa oo wax ka soo bedelnaa haddii aan marka labada khiyaaroon hor yaal waxay ahayd inaan waxaan intaan iska dhaafno doorashadii dadbanayd aan u noqonno oo aan dhahno qof iyo cod meeshasi ku dhammaatay oo markaan dhinac walba ka rogna ay noo muuqatay haddii go-aankaas la qaato inay adkaan doonto mar dambe in qof iyo codaa loo soo istaagaya waa markii labaad ayadoo dastuurka ku qoran tahay 24 sano aan dhaho sanadkan hadda waa kii 14aad umanayna dastuurkii 2012 la ansixiyey ee kumeelgaarida noogu baxay maanta aan haysanno ee kumeelgaarka laftidiisa ah ayay ku qoran tahay doorasho qof iyo cod charterkii ka horreeyay waa ku qoran qof iyo cod doorasho inay tahay intaas waa la soo sameey waaye maanta haddaan ma samayn karna haddaan dhahno dee waa un bes waa meeshaasay ka fadhi baranay raggii kale waa iswarsannay war dalku in ay doorashada 100% ka wada dhacdaahe shuruud xiraysa ma jirtee intii laga qaban kara laga qabto inta dhimanna beriyaa laga qabana hadda waad aragteen somaliland iyada waaba xaalkeedu mar hor ahay waana qabatay weliba somaliland maanta hadda doorashaa ka dhacday siday u qurux badnayd iyo sida dadka usoo baxeen iyo sida loogu loolamay iyo kulli dadka waa la wada arkayay waa arkayna laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay dib u noqdaan doorashadii ugu horeysay Somaliland ee dhacday inay ku noqdaan madaxweyne cigaal Allah u naxariisto intuu joogay inay helaan malaynaya dib ha loogu noqdo doorashadii koobaad iyo tii labaad ee Somaliland ka dhacday sida u ekeed hal fiir war wax kastoo bilow ah 100% bakeerigu waa buuxa iyo waa eber waxba u dhaxay Puntland qabatay doorashadii dowladaha hoose 3 jeer ay kala qabatay dhammaan waa ugu hambalyeeyay markastoo la qabta hambalyaan u direynay oo dadka Soomaaliyeed inta saf soo galaan ay sanduuq cod ku ridaan يعني wax fiican oo qurux badan ay ahayd waa ugu hambalyeeyeen waa ku bogaadin magaalada gaalkacyo nusna doorasho laga qabtay nusna aan laga qaban oo isku dabeecada oo isku dada oo maxaan ku raadaay isku qaab nololeed oo isku amni ah oo ilaan waa jir barbarna qanda ay ka hayso barbarna ka fiyo ma jiree meel aan dalkan ku taaloon doorasho lagu qaban karin waa meeshii shabaab uu ka taliyo iyo dabcan meeshii siyaasiyiintooda markaas ay diidaan qaba wariyaa doorashada qoray inta la isu qaato la iskuma dhahayo sidaas daraaddeed annaga waxaan go'aansanay dalka doorasho inay ka dhacdo meel allaali meeshay ka dhici karto cid allaaliya cidday khusaysana inaan u gelino barino raalli ahaw dhahno maslaxayno wax kastoo aan doorashadii aan la qabanin aan ka ahayn aan ku maslaxayno doorasho toos ayaan la qabanina doorashadii dadbanayd ha loo noqdo waxaan ka ahayn oo dhan inaan ku maslaxnaan ogolnahay tanasulna aan ka samayno intaasay horta sidaa wax u dhaceen wadadii la soo maray intaasay ahayd midda maanta taagan marka oo la leeyahay Jubbaland lagu soo duulay Jubbaland la burburinaya reer hebel la yiraaha soo duulay hebelo waxa ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiisa iyo hay'adaha lala hoos cararayay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba ka jiraan dawladda Soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro xoog military hal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalin ku dabaqnay ama ku jirin ma jiro mana jeclin wixii horwaayto kugu yimaado waa halkeed ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed magaalada Kismaayo degan yihiin joogaan Jubbaland gobolka Jubbada Dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale Gada iyo Jubbada Hooseba ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed meel aan joogin waa yartaa waa joogaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo kamid ah iyo waajibaadkiisa saaran admisa dalka ka baxay meelaha admis ay ka baxaysa lama wareegi kartiin ma imaan kartiin in la yiraahdo dow ma aha saxna ma aha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Kismaayo jooga ceel waaqo jooga Dhoobleeyo jooga gobolka Gada degmooyinkooda inta badan degmo kasta gobolka Gada ku taalo jooga doolo xuduudaas jirto ilaa saako dhinacan kala soo xigto laga yimaado jooga meel kasta jooga oo dagaal shabaab kula jira oo jooga ma jeclin hal qof oo Soomaaliya qof kale Soomaaliya dhigiis inuu daadiyo laakiin waxa meesha yaal mas'alada taalo waxay tahay maamulka Jubbaland ma ahan Axmed Maxamed Islaam nin la yiraaho waayo hogaamiyaha ka soo ahaa jira meesha Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay 3 gobol ay ka koobantaa Jubbada Dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan
gado cilaaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis maamulkeena ka tirsan tahay waxa dhex yaalla gada iyo axmed madoobe hogaankiis maaha reer gado intaan waraysanaan dhaano jubbaland inaad ka baxdiin ma rabtiin ma rabnay dheen jubbaland waa maamulkayni waa degaankeeni waa ka tirsannahay laakiin hogaanka ninkaanan dacwo ka nahay weligood meeshaasay joogi jireen war lama kala tegi karee isla jooga oo maxaan ku dhaha hogaanka laga leexdo yaan ku hayn jubbada hoose degmada Kismaayo iyo degmada muxuu ahaay Afmadow ayaa xorka ah inta kala xor maaha magaalooyinka waaweyn oo sheegayo waa joog ciidamada waa anaga kuwadan waa joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa jooga ciidamada daraawiishta Jubbaland waa joogtaa 13 sano sanadkii 14 uu socda Axmed hal tuulo kamida gobolka Jubbada Dhexe waa xorey waay Kismaayo dhinacna ugama bixin intana uma bixin iskuma dayin hub wuxuu helay wuxuu caalamka siiyay bakaaray ugu jiraan hadda uu soo bixiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la diraa markii la yiri hadda uu bakaarada ka soo saaray weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo shabaab afka markuu kala qaadana waxaan u noolahay inaan shabaab xoreeyo waa kula kaftay Axmed shabaab uu socotay garba saaxiibadaadii hore iyo waxbaad ku leedahay meesha waxbaad oorisan naga dhaafan kula kaftami jir maanta hubkii shabaab lagu la diriri waayay meel ku xereysnay wiilasha ciidamada amniga ee Jubbaland ka tirsanayna waad aragteen markay hadlayaan siday u noolaayeen iyo siday u dhaqmaayeen iyo sida loola macaamilay Axmed 13 sano markuu joogo kadib 5 sano kale horle inuu sii joogo oo sharci aan ahayn oo 18 sano Jubbaland xukuma war maxaan 30 sano dadka isaga laynay oo dawladnimadeenu u duntay maxaan barqacad anagoo baawarka joogno waa la ka helay markii la yiri aan inta uga baxnay oo ka dhaqaaqnay oo kii iga horeeyay ka dhaqaaqay oo kii iga dambeeyay ka dhaqaaqay oo anigu aan diyaar u abiri inaan ka dhaqaaqo waxa qiimahaas leh aan dawladnimada iyo nidaamka dalkan aan u socodsiinayna nin inuu yiraahdo aniga 18 sano iska joogay waxna qaban maayo walba haduu nin wax qabtay oo dalkii wax u qabtay oo xoreeyay oo maxaan ku yiraahdaa adeegay u bixiyay oo waxeeyay haduu yahay oo dadkii isku keenay oo dadkii reer Jubbaland mideeyay oo dad isku toosan oo haysto waxaan rabaa Axmed waa Axmed qabiil ma ah reer hebel ma ah shakhsi waay waxa uu sameynayna tala qabiil oo geed guni ku shirtay ka soo go'ay ma aha waa tala asigu istusiyay laga yeeli maayo mana soconayso mas'uulan ka nahay dalkan iyo dadka reer Jubbaland dadkan u dhaaranoon mas'uulka kan ay ka mid yihiin colaad iyo xumaan lama rabno laakiin reer Jubbaland waxaan u sheegaynaa Axmed xusuusta wadadii la soo maray dib u eega wax qabadkiisii fiiriya wax tarkiisii fiiriya dhaqankiisii fiiriya 13 sano muddo yar ma aha shalay iyo daraad ma aha waa muddo dheer waay aaway dadka reer Jubbaland maanta ma midaysan yihiin ma is haystaan kulligood ma joogaan afar nin saaxiibadiis oo meesha ku hayo oo aanan rabin hadda inaan ka hadalno muxuu ahay marka laga yimaado dadkii aaway qulubtoodii iyo midnimadoodii aaway xoreyntii dalka aaway dadkan shabaab ku habsaday 17 sano 18 sano dul habsaday ku dul fadhiyo ma waanay xaq u lahayn in la abaabulo oo loo dhaqdhaqaaqo bariga aan dagaalka bilaabayna Axmed wuxuu aad uga soo horjeestay waxa la yiraahdo muxuu ahay macuusleyda community-ga dadka in la kiciyo shabaab lagu kiciyo diiday waxaan rabnaa marka Jubbaland wax ka jira haddii aan soo koobo intaas waay ninkaas waa wuxuu noqday nin fooq qaanuun ah sharciga asiga oo wax ka saxiixo wax ka ogolaaday iska dhaaf mid kale oo hor u sii jiray iyo mid kale uu ka booday suurtagal ma aha dalka in Axmed rabitaankiisa in dalka loo furfuro oo dalka hadafkii siyaasadeed iyo horumarkii siyaasadeed oo gaari lahay oo caalamka kula tartami lahay dib loo wada waxay kaligiis suurtagal ma aha muddadii la soo dhaafay 8,000 oo askari in ku dhow oo atmis ah ayaa dalka ka baxday meelihii ay joogeen oo dhan dawladda federaalka ah la wareegtay hal meelaa ka jirto meel gacanta shabaab ku noqotay meel aad iyo aad u fog oo gurmadka iyo saadka iyo waxa aad iyo aad u dhibadan hal meelaa ka jirto inta kala dawladda federaalka dawladdu weli gacantay ku haysaa ayadoo dabcan la kaashanayso dawlad goboleedyada gacantay ku haysaa weli ciidamada dawladda baxay iyo Ras Kamponi airport kama jiri jirin Kismaayo in laga baxo Ras Kamponi la tagana ma sahlana badda in la marana ka sii dhib badan ma sahlana Ras Kamponi marka dhawaana airport laga sameeyay dawladda Kenya Soomaaliya ka kaalmaysay waa maadsan yihiin hadda meeshaas in meel looga dhaqaaqay leedahay oo laga aado meelaha ay muxuu atmisto ay ka sii baxayso iyo meelaha ka baxday
هدفك دولة الصومالية إذا ماذا حقوق دولة الصومالية أما إذا ماذا أمن الصومالي بوليس ميليتري واجران ماشي بوليس واجران ميليتري واجران أجران waxay tahay هدفkaas ma aha in dagaalna kama dhicin mugay tageen ciidana deganay meesha ciidana deganay markay ciidamadii tageen meesha oo la soo sheegay maxaa u socoteen saana u socon leeyahay ciidankay kamid noqdeen wiil Soomaaliyeed Soomaaliyadu la weyn tahay oo askara meesha joogtay ciidanka ma noqdeen kuwa kale oo Axmed Diray ciidanka kamid noqdeen war anaga wiil Soomaaliyeed dhigiis daadmeen diyaar u meen anagana keen wiil Soomaaliyeed dawladda ka tirsan inuu dhiigana daadi anagana kiisa aan daadin ciidamaday ku biireen wali waa sii wadaa muxuu ku wadaa meelihii ciidamada Kismaayiil laga difaacayay maxaan ku raadayay ahaydo dhammo ciidamada ka soo saaruwa oo ka soo wada maanta Axmed dawladda Soomaaliya shabaab dawladda Soomaaliya oo xumaata u darnaatay Axmed 18 sano meesha inuu joogo sina suurtagal uma sidoo ku joogay uu ku jooga hadii xataa inuu joogi karaba ay suurtagal waayo la yiraahdo sidaas ma aha sidii uu joogay marna dalka intiisa kale waa nabad dawladaha hoose doorasho ugu soo horeyso waa qabanayna ilaahay idankiis ka bacdina muxuu wali mar walba saacadaas la joogo iyo maalintii oo noogu dambeysay inta ka dhaxle gogasha wada hadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay waxaan diyaar u nahay meel kasto inaan la tagto inaan tagno wada hadal noo imaada hadii la yiraahdo inaan u tagno hadii kale anaga noo imaada dhayna in loo yimaado meel hebel aan soo nimaada in la yiraahdo dalka maanta maalintii xamar kaliya la tagi karay ama xamar iyo garow bas la tagi kara ma ahane meel badan oo dalka kamid ah la tagi kara oo lagu shiri kara laakiin dibadda inaan ku soo shirno ilaahay waa naga hayay hadda ka bacdin in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryayna tala Soomaaliyeed banaanka loo qaado tala siyaasadeed iyo heshiis siyaasadeed iska daay dib u eegista dastuurka iyo dib u eegista magaciisa yaan diidnay in dibadda loo qaado haddana tala siyaasadeed in dibadda loo qaado raali kama yihin laakiin dalkan gudihiisa aniga geedkaas ku raaco meesha ku yaalaan fadhiya qofkii yiraahdo inaan ugu tagno anaga diyaar u ah si nabad iyo isfaham iyo walaaltinimadii maxaa aan wada lahayn u dhalana loo gaaro dawladuna nooga hana qaado dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballan qaaday haddana aan ku sii adkaynayna dalku doorasho qof iyo codow aada ha loo diyaar garoobo ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan haday ahaan lahayd musalsalada Hindiga Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba TV-yada Soomaalida dhamaantood ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay